يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii qiimaha badnayd ee fursadda ilaahay uu na siiyey ahayd, fadligeeda iyo wixii dheeraad ay leedahay bishaasi dhowr iyo 10 arrimood oo islaamku uu ku qiimeeyay baynu soo aragnay. dib ugu noqon mayna, laakiin fadligeedii iyo faa'iidadeedii iyo wixii ay la gaar ahayd ee 12 bilood kale kaga duwanayd soo aragnay. maxayna la gudban weeyey. ولكل مقام مقال. hoos waliba hadal buu leeyahay. had wal oo la joogaba hadalka ku habboon weeyey. waa taaganahay fursaddii cimriga. cimrigu waa fursado. waxa lagu kala dheereeyaana dadka cimrigooda uu ku kala bataana waa sida dadku cimriga ay uga faa'iideystaan iyo ayaamaha soo mara. qof cimrigiisu yar yahayna oo muddo yar adduunka joogayna acmaal badan buu dhigaa oo akoonka ilaahay wax badan buu ku shubaa, akoonka aakhiro uu dhiganayo. qof wax badan jirayna waa ka maraya, waa ka casiya. marka akoonkeenna khayr kale intee oo dhinac baynu wax kaga soo shubaynaa. midda u horeysa waxa weeye as-siyaamu fi hada ash-shahr. cibaadada aynu u taagannahay bishan kow waxa ka ah oo faral ah soomka. haddaad odhan lahayd awaabaynu soomanahay, dee dadku miyuu wada sooman yahay? dad aan waaga soomkuba u baryin baaba jiraba. waa kuwa qaadka isku yaryan eed arkaysa meelaha dad xabaddu ka dhacaysa, marqaan baa la il daran yahay oo dadkii habeen iyo maalinba waa la qamxaya, waa la qaylaya. dad muruq iyo kuusan oo rag iyo dumar balo xooga ayaan uba jeedinba bisha ramadaan aanay u bilaninba. waana ubadkeennii, asxaabteennii, ehelkeennii. idan markaa cidda baraarujin lahayd ee wax u sheegi lahayd inayse soo barbar taagaan u diyaargaroobi lahayd waa innaga. ka waa inaad ciddaad kelmad ku leedahay ama aad ka mas-uul tahay markaa aan cudurdaar lahayn waa inaad kula xisaabtantaa soomka oo aad baraarujisa oo aad ku dabagashaa. xil baa kaa saaran. nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam qiimaha cibaadadani ay leedahay ayuu aada inoogu baraarujiyo. wuxuu uhi kullu camali bni aadama lahu alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa 700 dicf. qofku camalka uu sameeyo dhan isagaa leh. 10 jeer baana ilaahay u laablaabaa. laakiin ilaahay xadiid alqudsi waxa uu nabiga ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam soomku inuu gaar yahay. soomku waa gooni. ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bihi baa ilaahay u leeyahay. soomka anaa leh, anaana ka abaalmarinaya qof. anaa leh cibaadadoo dhan ilaahay isagaa leh oo isagaa ina leh. iyo waxaynu sheeganaba si gaarahoo loo calaamadiye waxay sheegaysaa cibaadadani inay wax gaara leedahay. waxa uu ku sii sababeeyey markaa xadiidku yatruku shahwatahu wa طacaamahu wa sharaabahu min ajli. qofku wuxuu iska daynayaa shahwadiisi iyo cunadiisi iyo cabidiisi. ma hiya shahwa? shahwadu waa maxay? waa rabitaanka qofka. rabitaanada xaaraanta ah way kala duduwan yihiin. waa rabitaanka hamadda ee xaaskii uu iska daayay. rabitaanka aragga wixii xumaaya uu daawan lahaa buu iska daayay. rabitaanka dhagaha wixii xumaaya uu dhagaysan lahaa buu iska daayay. iyo rabitaanka hadalka wixii xumaaya carabkiisa iyo afkiisa uu doonayay. kullu haadihi min ashahawaat. shahawaadkay ka mid tahay rabitaanada. aniga daraadday buu daayay baa ilaahay u leeyahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu markaa ilaahay ku abaalmariyey inuu qofkaas udgoonaado oo uu macaanaado. macaanku waxa sheegaya sacaadada. waa labadaa farxadood uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu afurayo markuu ilaahay la kulmo. mar haddaad qof saciida taho sacaado la waad macaanti.
udgoonkana waa kaa nabigu sheegay yidhi walaa khaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk. idan cibaadada iyada waxa u horeeya inu u taagannahay waxa weeye inaynu soomkaa akownka khayrka leh faralkaa kusoo shubno. waxaa kaloo aynu ka helaynaa wax allo wixii aynu la rooraynay inuu ilaahay bishan inaga reebo ee dembihaa. man saama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi. qofka bishan ramadaan sooma isagoo rumaysan wuxuu ilaahay u ballan qaaday ilaahayna abaal kaga doonaya dembiga horaa laga dhaafaa. dembiga horena waa wixii 11 bilood aynu soo booshaaqaynay aynu soo samaynaynay ilaahay baa inaga dhaafaya noocyadii kala duwanaa u lahaa. idan waxa halkaa aynu ka arkayna maalinka aynu soomanahay yuu la mid noqonin maalmaheenii kale la xajeclo gaari ah inaga hayso. waxaynu akownka khayr kale dhinac kale kaga soo shubaynaa thawaabkii aynu ilaahay ku weydiisanaynay sarajooggeena habeenkii alqiyaam. man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi. dembi dhaaf baa dhinacaana ka soo arooroo ka yimi. markaad habeenkii isu taagto cibaado taraawiixdii witrigii salaatuleylkii cibaadada aynu isu taagaynaynu wakhtiga habeenkii ku camiraynana iyadana dhinacaasaynu kaga soo shubaynaa. waa arrinta labaad weeye. ilaahayna awliyadiisa saasuu ku ammaanay. awliyadii jannada galay ayuu ka warbixiyey waxay jannada ku heleen. wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama wاladiina yabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaama. u fiirso caalamkaasay ku casuuman yihiin dambe oo cibaad uraxmaan maxay ku heleen jannadaas? may ahayn dad kibra, may ahayn dad bilaa macno ku nool, may ahayn dad iska ciyaaree habeenkiiba ilaahay u cibaadaysan jireen. habeenkii waagu wuxuu u baryi jiray iyagoo cibaado u taagan buu ilaahay. waxaasay soo sahay qaateenay halkan ku heleen. asxaabiga la yidhaha saa'ib ibnu yaziid radia allaahu canhu waxa uu leeyahay kaana alqaari'u yaqra'u bilmi'iin yacni almi'aat min alaayaat wakunaa nactamidu cala alcushiyi min tuuli alqiyaam wamaa kaanuu yansarifuuna ilaa cinda alfajr. saxaabadii iyo salafkii iyo saalixiintii markuu warramaya waxa uu leeyahay waxaa lagu cibaadaysan jiray boqolaal aayadood. aayadaha la akhri jiray waxay ahaan boqolaal. marka la daalana ushaa la cuskan jiray kolkuu qofku daalo. waagu markuu soo dhowaadee suxuurta la gaadhana waa laga bixi jiray salaada. ciyaar ma ahayn, wax la daawanaya ma ahayn, soo jeed ma ahayn, qayilaad ma ahayn. laakiin ilaahay baa la hortaagan yahay subxaana wa tacaala. aayadihiisana waa la akhriyaya. anteenada addoomuhuna isagay ku xidhan tahay oy si toosa ula faqayaan. marka arrintaasina aada iyo aad bay muhiim u tahay. taraawiixda qofkii haleela masjidku ku tukanayaa, salaatuleylkii iyo cibaadadii habeenkiina qofku caa'iladiisa iyo qoyskiisa intuu kiciyo ayaa ay ku tukan doonaan qur-aanka kariimka ah wixii ay ka yaqaanaan iyo salaada intay karaan iyadoo midhkii witriga loo dambaysiinayo. qofkii xataa aan dusha ka haynin kitaabka uu ka akhri karaa. dhinac kale waxaynu akownka kaga soo shubaynaa sadaqada iyo gacan furnaanta inagoo kaga dayanayna qaa'idkeennii weynaa nabiga calayhi salaatu wassalaam. kaana rasuulu llaahi ajwada annaasi bilkhayr wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil. dadka wuu ugu deeq badnaa bay leeyihin asxaab. rasuulku ugu deeq badnaa. weliba marka malagga caalamka kore ka yimi uu nebiga la kulmayana gacantiisu way sii furnaan jirtay. deeqduna way sii kala daran tahay. waxaa kow ka ah idcaamu dacaam inaan laynagu dhex gaajoonin. oo dhaqasha horta ha joogtee dhuuniga waa inaan la waayin. oo dadkii soomanaa iyo dadka fuqarada ah waa inay cunadu noqotaa mid iska badan oo meel walba laga heli karo. ilaahay baa sidaa ku ammaanay awliyadii jannada gala waxau ihi wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira. markay ifkii joogeen waxa la cunaabay bixin jireen iyo quudka iyagoo weliba jecel. miskiin bay siinayaanoo agoon bay siinayaanoo qofkii maxbuuska ahaa ee gaalada laga soo qabtay gaajo kumay dili jirin isagana dhuunigay siin jireen. innamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura. waxay odhan jireen
waxaanu idin siinayno waxba idinkagama doonayno ilaahay wejigiisiiyo daraaddii baanu ula jeednaa macnaa deeqda waxa u wehelinaysay daacadnimo dad daacada bay ahaayeen innaa nakhaafu min rabbinaa yowman cabuusan qamtariira aakhirana waa ka cabsanaynaa maalinkaa qiyaamahoo la sheegay inuu adag yahay kaana inaanu ka nabadgallo kulaylkiisa iyo dhibkiisaanu doonaynaa ilaahayna markaa waxay ka baqayeenna wuu ka badbaadiyey waxay ku yidi diilanayeenna wuu siiyey fawaqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan wa suruura farxad iyo iftiin baa ilaahay uu ku abaalmariyey salafuna saalix waxay ku dadaali jireen bisha in wax la wada cuno oo aan la kala cunin waa siday nagu yaro badan geydh weynuun in lasoo xidho oo masaakiintuna meelaha warwareegaan bannaankaa cunada loo soo wada saari jirayoo afka afurkaa la wada saari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu lislaami khayr camalada islaamka ee noo yaaleenu qabanayna maxaa u wanaagsan maxaa u khayr badan markaa rasuulku waxau ihi tudcimu acaam wa tuqri'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif dadkood dacaamka siiso dhuuniga iyo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay cunadii oo dadka siiso iyo adigoo aan u kala axanin dadka qofkaad garanaysa iyo ka kaleba ciddii meel kaaga soo baxda salaama imaamu shaafici wuxuu leeyahy raximahu llah uxibu lirajuli ziyaadata biljuudi fi shahri ramadaana ibtidaan birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walixaajati nnaasi fiihi ilaa masaalixihim walitashaaquli kaiiri minhum fiihi bilcibaadati can makaasibih saddex arrimood daraaddood in deeqda la bixiyo bisha ramadaan baan dadka aada ula danaynayaan u dardaarmayaa buu leeyahy imaamkaa weyne saaxibulmadhab maxamed ibnu idriis shaafici in deeqda la badayo inagoo kaga dayanayna horta rasuulka baahiduna way iska badan tahayoo maalmaha dadka baahidu way ku badantay qaarkoodna shaqooyinkiibaa ka xidhmay walaa siyamaa fi hadihi alayaam ayaamahana waynu arkaynaa busaaradiiba badatay markii baqihii cudurkaasi yimi marka idcaamu dacaam arrintaasi aad bay muhiim u tahay dadka ilaahay wax siiya waxaya raashinka qaydhin inay qaybiyaan ku qoyanna qaybiyaan weliba hilibka inaa u fiirsateen mooyaane fuqarada qayb baan hilibba helin baryaha wasladii halkay maraysa inta sacuudiya arabiya ay ka maraysaabay halkeennana ka maraysa xoolii waynu haysanaa laakiin waa qaali dad badan baa markaa fuqaradii hilibkiiba goyn laha maxay ku yeelaysaa inaad awr $400 soo iibiso ood 100 wasladood ka dhigto ood 100 qoysiiso waxaad kari karaysa wey ama laba qof ay isku kaashataan dabeetana dadka fuqarada iyo jaarka ah marka wiig la joogo bishii 2 jeer xoolo loo qalo hilib la siiyo arrinta aad baynu adkaynaynaa dadka maadadii borotiinka qaar baan hayninba nafaqa darro u dhimanaya waxa iyaduna aada u sii muhiima taftiiru saa'imiin dadka sooman in la afuriyo dadka sooman in la afuriyo qodobkii saddexaad ee akownka khayrka lagu soo shubayay ee lagu biirinaya lagu badinayay baynu wadnaa fuqaradii waxbaa la siinayaa dadkii baahnaa saa aynu horeba usoo xusnay masaakiintii agoomihii waxaa si gaara iyagana loo sii eeganayaa qofka sooman qofkii soomanaa isaga siyaado dheeraa wax dheeraadaa laga helaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa waxa uu ku yihi man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri gayra annahu laa yunqasu min ajri assaa'imi shay qofka qof sooman afuriya qof sooman ayuu la raadsado afuriyey maaha isagun inuu raadsanayo wax afuriya dadka qaarkood oo innaga laga yaabo inay haystaan baa waxay raadsanayaan cid afurisa adigu ku dadaala inaad koob sharaaba 2 xabo oo timira saambuusiya wixii lagu afuri jiray dadku caado u lahaayeen dadku waxay jecel yihiin inaad kaga qayb qaadato ka gaarsiisay inaad afuriso taa ku dadaal mar haddii adigiiba helaysay inaad cid wax siiso qofka qof sooman afuriya wuxuu helayaa kaa sooman ajrigu hela in la eg buu ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna kama naaqusayo kama yaraynayo ilaahay deeqdiisu way ballaaranta waa kariim kan sooman intuu siiyo in la eg buu adigana ku siinaya marka maalin walba waxaad ku xisaabtantaa intee qof baa kuu soomay macnaha soomkoodii in la eg adiguna aad helaysa oo aad afurisaa arrintaasina aad bay muhiim u tahay waa idcaamu dacaamkii qayb ka mid ah dadka wax la siinayo ma aha inay yihiin fuqaro oo qura ma aha inay yihiin dad sooman oo qura dadka asxaabta iyo ehelka iyagana la casuumi karaa oo karamka iyo deeqdu waxay ka mid tahay in hadiyadaha la is siiyo la is casuumo iyaduna fadli bay sii leedahay bishan ilaan maxabad iyo jacaylka sii kordhaya
waxa afraad oo iyaduna aynu akoonka dhinaca khayrka ka soo shubayna al-ijtihaadu fi qiraa'ati al-qur'aan al-kariim ilaahay kalaamkiisa inaynu ku noolaano aynu la noolaano oo aynu ilaahay la faqno aynu dhageysano subxaanahu wa tacaala marka bishan aad bay ayuu nebigu akhri jiray qur'aanka waliba malakul jibriil baa u iman jiray malagii muallimka waxa ilaahay ugu soo dhiibay baa la akhri jiray yudaaris macahu oo uu la subcinaya asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim qur'aan akhriskooda wuu ka sii badnaa intii hore oo waxa ay tilmaamaan dadkii la saaxiib ahaa Uthman ibn Affan inuu hal mar dhammayn jiray qur'aanka kariimka ah maalin walba haddii adiga kugu adagtay bishan aad mar dhammayso adigoo qur'aankii akhri karo yaqaana maalin walba hal mar buu dhammayn jiray ha qariibsanino ha odhanin siday u suuroobaysa qaarkood kaana bacdu salaf yakhtimu fi qiyaami ramadaana fi kulli maratin qaarna habeenkiiba waxay dhammayn jireen ramadaantiiba mar dhammayn jireen qayb kale usbuuci qayb kale 10 cish marka haddii aad tidhaahdo sawkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur'aanka muu fahmin 3 cisho ka yar qofka akhriya sidee bay noqonaysaa culimadu waxay kaga jawaabeen sida uu leeyahay caalimka ibnu rajab alxambali waa markuu qofku joogto ka dhigayo laakiin markuu joogo waqti fadli badan sida ramadaan oo kale ama baytullaahi alxaraamka oo kale wuu kordhinayaa taasina way ka sugantay saxaabada wax la yaab lana maaha qofku markuu maahir ku yahay quraanka ee quraanku sida faatixada adiga uu kugu degan isaga ugu dego wuxuu kari karaa 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo inuu ku akhriyo juska adigu aad saacad la rafanayso marka 30kii jus ku dhufato 20 daqiiqo 9 saacadood iyo xoogaa weey de qofku 24 saacadood buu haysta hadduu 9 quraankii akhriyo 3 jeer oo min 3 saacadood 30kii uu dhameeyay ka dhiganta qofkii ilaahay u sakhiray subxaanahu wa ta'ala mutamakinka ah ee quraanka si adag u hayay taasina wuxuuna sheegaysaa inay de shaqooyinkii soo yareynayeen inay khayrkan ka fara qabsadaan ayaamahan qaaliga bay isku day jireen salafuna saalix waxa lagu xisaabtamayaa cibaadadani mar hadday sunno tahay qofba waa intuu kari karo cibaadooyinka dhinaca kale aynu kaga soo shubayna waxa kamid ah al-juluusu fil masjid hatta tadlu'a ash-shams inuu qofku masjidka iska fadhiyo ilaa intay qoraxdu soo baxayso qiibo weyn bay leedahay waa ramadaan iyo qeyrkiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam halka uu ku tukado salaada subax buu fadhiyay ilaa qoraxdu soo baxdo sidaasaanu dadka faray waxaanu tilmaamay inay u dhiganto xaj iyo umro dhammaystiran salaadii subax waa tukatay wardigii baad akhriday quraankii baad akhriday waxbadanimo uma dhaxeeyaba saacad iyo rubuc baa u dhaxeeya adaanka subaxa iyo qoraxdu intay soo baxayso de marka laga jaro intii subaxa la sugay ee laga jaro intii salaada subax la tukanay wax yar baaba soo haraya 30 daqiiqo soo haray buu qofku jiskii akhriyaya wardigiina uu akhriyaya qoraxdiiba waxay gaadhayba halkii uu tukan lahaa qofku udxiyada waqtiga udxiyada tukan lahaa buu gaadhay udxiyadii buu markaa tukaday halkaas uu ku xajay oo uu ku umraystay isagoo isla meeshiisii fadhiya hadaad heli karaysa markaa masjidan iska cidla ah oo aad ku khalaawayso waad samayn kartaa cibaadada waqtigan la yiri ururka yar dhib badanaya i'tikaafkii baa isaguna jiro qofka hela meel uu ku i'tikaafo i'tikaafkiina waa sunne umradii bisha ramadaan la umraysanayay marka ama waqtiga ay arrimahani suura galaan way ay sahlanaadaan marka qofka intaas oo arrimood wada bishan gudaheeda iyo qofka intaaba aan u jeedin isku islaamna ah isku abtirsiimana ah isku deegaanna ah sida aakhira u tartamaya sida janno ugu soo wada xaadiraya ilaahay fadligiisu uu ballaaray subxaanahu wa ta'ala laakiin waxaynu arkaynaa la kala dheeree orodka maaha in la kala dheeraynayo adduunkiiba lagu kala tagay oo qofna halkan uu ka arqaalaya ka sii qaadanaya qofna isagoo iska gacmacad buu halka tagaya marka waxaynu baraarujinaynaa waxa aynu bishan ku qaadanayna inuu ku camiraynaa waa cibaadooyinka qiimaha badan ee waqtiga la lumiyo ma aha iyo adiga oo karaahiyeysta bishan iyo adiga oo gaajada ee ay ku damaqda maaha waxa soo dhan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan fawaa'idkii ruuxiga ahaa iyo cibaadadan sidii ay u kobcin lahayd qofka loo badsan lahaa faa'iidooyinka caafimaad ee soomku uu leeyahay marar badan baynu ka hadalay laakiin ta inoo muhiimka ah waxa weeye diinteenna sidaynu u korinaynaa inuu u kobcinaynaa allah ina waafajiyo
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون والسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.